Aweyo ho, Somali ni Mario, Aweyo ho. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo kamid ah aqoon-yahanka Soomaaliyeed ahna shakhsiyaadka naadirka ah ama farakutiriska ee Soomaaliyeed ee markaasi wax ka qora waxna laga weydiiyo arrimaha heer caalami iyo dunida soo koreysaba dawlad deegaanka Soomaalida ay ugu dambeysay muddo 15 sano ka hor ayaa soo gaaray magaalada Jigjiga waxaana garoonka diyaaradaha ay Garaadwiilwaal si diiran ugu soo dhaweeyay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar wafdi ballaaran oo isugu jiray golaha kaabineetka deegaanka odayaal dhaqameed bahda jaamacadda Jigjiga dhalinyaro waxgarad aqoon-yahan kooxaha fanka iyo suugaanta iyo bulshada qaybeeda kala duwan socdaalkan professorka ahna qoraaga heer caalami Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ay ku helinayeen dhaqaatiir ganacsato iyo aqoon-yahan kale ayaa waxa ujeedada socdaalkani u ahaa sidii ay u soo booqan lahaayeen professorka iyo wafdigan uu hogaaminayay xaaladda guud ee deegaanka oo ay muddo hore ugu dambeysay halkii ay kaga tageen halka uu marayo si markaasi ifafaalo looga bixiyo mustaqbalka kadib soo dhaweyntii ballaaran ayaa waxa qolka martida khaaska ah ee garoonka diyaaradaha ee Garaadwiilwaal warbaahinta kula hadlay wasiirka xafiiska maamulka deegaanka mudane Xasan Maxamed Xuseen maanta waxaa farxad noo ah inaan soo dhaweyno Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah aqoon-yahan rugcada ah oo u dhashay Soomaalida oo ah afraadda naadirka ah ee lagu tiriyo in ay yihiin dadka uga faa'iideeya aqoontooda iyo khibradooda deegaanada kala duwan ee Soomaaliyeed isagoo in badan ka maqnaa deegaankan ayna ugu dambeysay muddo 15 sano inuu soo booqdo magaalada Jigjiga inaan mar kale ku soo dhaweyno magaalada Jigjiga iyo deegaankiisa aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ku soo dhawow magaalada Jigjiga Professorku waxaan leenahay waa afraadda aan ku tirin karo anagu deegaan ahaan ama xukuumad ahaan inay yihiin dadka Soomaali isu soo jiidi kara ee meel isugu keeni kara ra'yi ahaan iyagoo isticmaalaya aqoontooda iyo khibradooda gaar ahaan uu yahay qof khibrad iyo aqoon dheeraad u leh Soomaalida waxaan leenahay marka Professorku soo dhawaada mar labaad waxaana uu Professorku u yimid in uu lecture ka jeediyo jaamacadda Jigjiga ama Jigjiga University inuu ka jeediyo laga bilaabo maanta iyo maalmaha kooda inagu soo haya deegaanka oo dhan diyaar buu u yahay professorka inaga oo hadda joogna airportka Jigjiga ee Garaadwiilwaal kabineetkii deegaanka iyo madaxdii kala duwaneed ay ku soo dhaweynayso waxaan leenahay bagaad noogu timid magaalada Jigjiga ku soo dhaw Professor waana arki doontaa waxa ka jira deegaanka iyo shacabkaaga iyo sida ay ku jecel yihiin iyo sida lagu soo dhaweynayo waxaan leenahay indhahaad ku arkaysay hadda soo dhaweyntii lagu sameeyay marka ku soo dhaw baan ku leenahay mar labaad dhankiisa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo aanu wax ka weydiinay soo dhaweyntan kadib ujeedada socdaalkiisa ayaa cadeeyay inuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay soo dhaweyntan ballaaran ee loo sameeyay ilaahay iyo dadka Soomaaliyeed gobolka degan ayaa mahadle 2003 halkan ugu dambeysay reer Jigjiga waana hoo halkan jibriga waaga numari jirnay uulada iyo taaniyada iyo hayn ayaa hooya tagu jaalo nooga soo dhiibi jirtay timir marka qolooyinka jibriga ee baaranaya dadka ayay tidaahaa timirta u fura marka timirtay ku jeesanayaan inninkay niga jeesanayaan marka halkan timir sidii lahaa maanta ma sha Allah in calan la sida Soomaaliyeed in dad Soomaaliyeed meeshii xukumaan in maamul wanaagsan ka dhashay aad iyo itaal ayaan ilaahay ugu mahadnaqanaa ilaahay baa mahad leh gabdhaha iyo ragga iyo madaxda iskugu timid meesha waxaan filayn baad na tusteen qalbi wanaagsan baad na tusteen ilaahay khayr hayna siiyo
مرحنا إيمان كريجين باجرتي وطنك مركا إن ضد سومالية ماشي كوكسو دويان وحويان دخل أدوك كوحي جواي دمانتين ولا بين آدم بانها أما عدانا هاو أما مدوى هاو أما أفريكانا هاو أما آسيانا هاو بين آدم بالوية لكن سب بين آدم كالله وحبا يسكتره من نوع تعدد نمدى إلى هاي نوع بورين نبي آدم عليه الصلاة والسلام كان من نوع حويا دتك وح بدن وذاكتان ما ها أبترسين أو قرها أبترسين توا كدار كأبترسين له وحويا وح كلو يسكوسون جيدا يا النقد حية مركا دتك قبل كدقنا الصوماليات يو تجمهورية دي بدقن با أدونك وانسكحنا مسلم ككلنا وانسكحنا marka inaan dadkayga dhaxaymaado waxa weeyaan farxadaan la koobi karin walaal kadib waftigii uu hogaaminayay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo mas'uuliyiintii soo dhaweeyay oo isku duuban ayaa soo kicitamay xagga iyo magaalada Jigjiga waxaana lagu wadaa in professorka iyo waftiga uu helinayaaba ay maalmaha inagu soo foodalay ay ku sugnaan doonaan deegaanka Soomaalida